maanta waxaan isxasuusinaynaa adinkoo yaqaana awlaaddii iyo carruurtii rasuulka ilaahi calayhi salaatu wassalaam. waxaad ogaataa qof yahow muslimka ah tirada carruurtii uu dhalay nebi moxamed inay yihiin 7. 3 waa rag ama waa lab ama waa inimo, 4na waa gabdho oo waa dhadig. 3 wiil kan ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa alqaasim, waana midka lagu naynaasay nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam, oo nebi moxamed kunyadiisa waxaa weeye abulqaasim. walidaalika saxaabo badan abu hurayra ka mid yahay waxaad arkaysaa iyagoo dhahaya qaala abulqaasim allihii abuuraan ku dhaartay. qaasim marka waa wiilka koobaad. hooyadiisna waa khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha. midka labaad waxaa la yidhahdaa cabdullah, waxaa kaloo lagu magacaabaa addaahir. hooyadiisna waa khadiija. wiilka saddexaad waa ibraahim, carruurta nebi moxamed kan ugu yar ayuu ahaa. hooyadiisna waa maariya alqibtiya radia allahu canha. waxay ahaan jirtay addoommadii kiristaanka ahaa, way islaamtay laakiin kadibna nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam ayay ka mid noqotay ehelkiisii iyo qoyskiisii. maariya alqibtiya waxay ka soo jeedaa reer masar. dhammaan carruurtaas yaraan bay ku dhinteen, yacni 3 wiil ayagoo yar bay dhinteen. ibraahim magacaasi wuxuu ugu bixiyey nebi moxamed, awowgiisa ayaa ugu magac daray ayuu yihi rasuulka sida laga wariyey, waa nebi ibraahim calayhi salaam. laakiin maalintuu dhintay dadka qaarkood waxay dhaheen markay qoraxdu madoobaatay nebi moxamed wiilkiisaa dhintay, saa daraaddeed bay qoraxdu u madoobaatay. laakiin nebi moxamed taasi waa ka diiday oo dembi ay dadku gelayaan inay tahay ayuu sheegay nebi moxamed, qoraxda madoobaanaysa iyo arrimahaas. gabdhahana waa 4 hablihii u dhalay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. midda koowaad waxaa weeye zaynab radia allahu canha. tan labaadna waxaa weeye ruqaya radia allahu canha. midda saddexaadna waa umu kulhuum radia allahu canha. midda afraadna waa faatima. 4 gabdhoodna khadiija ayaa dhashay radia allahu canha. halkaa waxaa kaaga soo baxay 7 ilmood ee nebi moxamed u dhalay 6 ka mid ah, 2 wiil iyo 4 gabdhood inay khadiija dhashay. khadiijadii uu ku guursaday nebi moxamed iyadoo 40 sano jirta oo goroob ah. ogow hadda khadiijana carruur bay horay usoo dhashay oo niman kale ay u dhashay. barakadaasuuna nebi moxamed ka helay calayhi salaatu wassalaam markay is-aamineen rabbigoodna ay isku xidheen. faatima oo iyada si gooniya siiradeeda uga sheekayn doona hadduu alla idmo, waxay ahayd mid nebi moxamed aad u jecel yahay. halkaa marka waxaa kaaga soo baxay xaasaskii nebi moxamed markii laga reebo khadiija iyo maariya inaysan waxba u dhalin. ilaahay ka raali noqdo hooyooyinkii mu'miniinta. waa mahadsantihiin, sii faafiya. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.